magaalada Hargeysa waxaa kulan ku yeeshay maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay. Kulankani ay yeesheen maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ayay ku sheegeen in khilaaf soo kala dhex galay wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale dugsiyada gaarka loo leeyahay, kaasi oo la xidhiidhay ardayda dhigata dugsiyada gaarka loo leeyahay oo ay fasaxeen maamulayaasha dugsiyadaasi. Ha yeeshee wasaaradda waxbarashadu ay ugu dartay bil fasaxa oo dheeraada. intii uu socday kulankan ay yeesheen maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay waxay aad ugu nuxnuxsadeen doorka ay dugsiyadani ku leeyihiin dalka. maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay oo ah kuwa ay ku faanto Somaliland ayaa ka biyadiiday go'aanka ay soo saartay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland. dhaqaalahooduna ku tiirsan yahay fiiga laga qaado ardayda. taasi haddii ay dhacdana ay dhacayso dugsiyadii markaa inay istaagaan oo ay dumaan, iyada oo ay jiraan kharashyo fara badan oo ku socda dugsiyada gaarka ah sida kirooyinka, mushaharada shaqaalaha, laydhka, biyaha iyo wixii la mida. warqadayada waxa aanu ku soo gabagabaynay annagoo ka wakiil ahayn dugsiyada gaarka loo leeyahay guddidayadii la kulantay wasiir ku-xigeenka iyo agaasimuhu sidana gabagabadeedu ahayd. haddaba mudanayaal, annagoo tix raacayna go'aanka ka soo baxay wasaaradda ixtiraamaynana waxaanu idinka codsanaynaa in duruuftaasi aan kor ku xusnay darteed dib loo eego, annagoon qaadan karaynin culayskaa qaadi karaynin, aanaan hirgelin karaynin wareegtada. sidaa daraaddeed waxaanu idinka codsanaynaa dib u eegis. hase yeeshee maalintii xigtay aw soo qoray wasiirku wareegto uu kaga jawaabayo taasi warqaddan aanu diray oo laba qodob uu ku soo gabagabeeyey. qodobka koowaad oo lafdhabartiisa nuxurkiisu ahaa wasaaraddu hawlo muhiima bay qabanaysaa bisha. annagu maanaan fahmeen markaa hawlaha muhiimkaa, laakiin taanu fahmnay waa qodobka labaad oo ahaa ardaydu waxay u baahan tahay fasax dheer si maskaxdoodu ugu diyaargarowdo waxbarashada. sidaa darteed waa la garan karaa markaa wareegtada iyadaasi wixii aanu ku qoray iyo jawaabtaa wasiirka ama wasaaradduba inaanay wax isleeg ahayn. waxaan ku soo gabagabeynayaa arrinta labadaasi waa la garan karaa. waxaan ku soo gabagabaynay waa layga dambayne arrinku maanta halkaa ayuu marayaa. waxa aanay go'aanaanu ku gaadhnay haddii aanu nahay dugsiyada gaarkaa mar haddaanu caddaynay in la geli doono 4 bisha August 2018 oo bilaabmi doono insha Allah sabtida soo socota. runtii barayfadku wuxuu hayaa baahidii ay dabooli kari weyday wasaaradda waxbarashada ayuu hayaa. qaabku ku soo galay environmentka iyo bahda waxbarashada qaabku barayfadku ku soo biirayna waxay ahayd dee Somaliland oo dhan baa curdin ahayd. lama sugin dawladda iyo intii xoogaysanaysay kaalintii waxa sii buuxiyay barayfadka. iskuulka la yiraahdo hadda xasuusataan Farax Omar waqtigii dalka aynu soo galnay wuxuu ka mid ahaa dugsi ka mid ah dugsiyada gaarka ah oo intii aanay dawladdu xoogaysan waxa ku shaqayn jiray iskuulkii gaarka ahaa ee la oran jiray Al-Furqaan. wasiirkii mar haddii aan isla fahmi weynay soo gelistii la soo gelayay oo wasiirkuna uu leeyahay bisha 9aad gal, annaguna aanu leenahay bisha 8aad baanu gelaynaa. annagu taa dee waxa weeyaan haddii laba qof ay isqabtaan cid u dhaxaysaa qabata. cidda u dhaxaysa waa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland. marka madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad arrinkayaga aad soo faragelisid oo aniga iyo wasiirka annaka iyo wasiirka adna dhexdhexaadisid. taasaanu kaa codsanaynaa. barayfadku waa taa laga soo sheekeeyey. anigu in badan baan macallin u ahaa dad fara badanoo maanta jagooyin waaweyn haya ilaa dulcad snm anaguba snm baanu ahayn. snm waxaanu ku ahayn xagga tacliintaanu snm ku ahayn. qolana xabadda unbay ridaysay, qolana qalinka unbay ridaysay. marka waxaan leenahay madaxweynaha
waxa weeyaan anagu waxaan ugu talagalnay bisha 8aad in la galo adiga marka arinku ku taagan yahay dee arrintaasi baaqaasaan kuu soo diraya goobta maamulayaashaasi ku hadleen ayaan dabcan hadda ku suganahay afayeenada u hadlay mid kamida waxaan jecelahay in laba wareegta ayaa wasaaradda ka soo baxay inaad caddayso taad qaadateen go'aankeeda bisha 8aad afarteeda maalinta sabtida ah inay soo galaan waxa dadka maanta halkan fadhiya waa dadka muxuu ahaa xilligaasi dibadda la joogay ubadkii ururiyey ee geed hoostii runtii wax ugu dhigayay halkaas ka soo bilaabeen waxay soo gaadheen 1991kii xilliyadii daasadaha iyo dhagaxaanta lagu fadhiisanayay ayay waxbarashadeenu ka soo bilaabantay dugsiyada gaarkii maanta runtii waxaad ogtihiin horumarka weyn ee la taaban karo ee ay gaarsiiyeen ay ku soo kordhiyeen waxbarashada reer Somaliland waxa jira intaas oo bas oo waalidiinta oo dadkoogii muxuu u diyaarinayay bishan in ay ka hawl galaan oo deyma qaatay oo baabuurtoodii u diyaariyay ayaa kamida waxa kamida runtii dadaalada kaalinta ay ugu jiraan waxbarashadu waxa soo shaqaalay dhammaan dawladda cashuur bay siiyaan oo cashuur bixiyaan waxay qayb ka qaateen dugsiyada gaarkii in dakhligii dawladda ay muxuu kobciyaan oo ay kor u qaadaan qof kasta oo shaqaale oo macallina 6% ayaa laga qaadaa cashuur ayaa laga jaraa iyadoo kaasha oo dollara ay dawladda runtii u xarootaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Yaasiin Maxamuud Xaaji Xiir Faratoon oo telefishinka Ariel xiriir la sameeyay waxa uu sheegay in dhawaan uu ka hadli doono arrintani Liibaan Cismaan Cali telefishinka Ariel Hargeysa